السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قالوا كسول وعلى القناة وكان فضلنا هدي عنو عصبتهاي سبسكرايب نودا هدي هورنود جوف الشركة لايك كومنت وينو ديرجلين maanta waxaan ka hadli doonaa cunooyinka u wanaagsan hooyada uurka leh inta haysan allaha siiyo ubad wanaagsan oo baariyaal ah inta haysatana allah u barakeeyo inta caloosh ugu jirtana ilaahay ayagoo nabad ah kala keeno insha Allah taala sideeda waxaa jira markay hooyada uurka leedahay inay iska ilaaliso waxyaabo fara badan waayo sideedii hore ma aha naf kale ayaa ku dhaxnool marka waxaa loo baahan yahay cunooyin ay nafaqo ka heli karto baby caloosh ku jiran oo nafaqo ka heli karo inay ku dadaasho cunistooda waxaa kamid ah inta hadda u jeetiin meesha saaran ukunta ugu muhiimsan sidoo kale tufaaxa hooyadu wuxuu ka saacidayaa insha Allah taala babyga dhalantoona inuu markuu cunuga soo baxo qaar baa neefta ku dhagta ilmaha oo oxygen u baahda maxay ahayd hooyada badsata tufaaxa hadhow cunugeeda neefta ku dhigmayso ama ku adkaan mayso inuu neefsado insha Allah taala faa'iidaas goonida ayuu kaas xambaarsan yahay ayadan waxay ka helaysaa fitamiino fara badan ukunta kale hooyada waxay siinaysaa protein carrot sidoo kale vitamin A ayaa ku jira aad ugu wanaagsan tahay breadka ama rootiga waxyaabaha qalalan oo kale hooyada markaas oo kale aad bay u jeceshahay oo waxyaabaha suugada ugu karshay waxyaabahaas uu dhibaya marka waxyaabaha kale oo hooyada cuni karto waxaa kamid ah digirta waa full protein digirta waa inay ku dadaashaa sidoo kale malayga ama kalluunka hooyada waa inay ku dadaashaa sidoo kale cabista caano fara badan hooyada waa inay cabtaa maxaa yeelay caanaha waxaa laga helaa calcium xilligaasna hooyada uurka leh calciumka inay ku yaraato ayaa macquul ah marka ku dadaal hadii aad awoodo insha Allah taala inaad cabto caano fara badan waa inaad cabtaa sidoo kale tana dhakhtarkaada aad la kaashataa wax walba oo kugu soo kordha sidoo kale hooyada markay uurka leedahay waxa u wanaagsan inay cabto biyo aad u fara badan biyahaasi hooyada jirka waxa macquul hooyada inay iska maanta dhan candhuuf fara badan ay tufayso ama ay matagayso jirkeeda soo marka biyaha uga dhamaanin waa inay hooyada ku dadaashaa qaadashada biyo fara badan maxay ahayd sidoo kale hooyada waa inay maxay ahayd qaadataa cagaarka qudaarta cagaaran oo kaleeto maxaa yeelay constipation ama calool fadhi ku dhici maayo sida koostada oo kaleeto salarka oo kaleeto hooyada waa inay badsataa siiba koostada aad ay ugu wanaagsan tahay xagga jilcinta caloosha oo hooyada waxaa macquul ah inay ku imaato constipation ama calool fadhi marka arimaas ay ka hortagaysaa insha Allah taala intaas ayaan kusoo gabagabeynaa fadlan nala socdo insha Allah taala waxyaabo aad u fara badan oo faa'iidooyin ah halkan kusoo gudbi doona aad baa u mahadsantihiin